السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو فكرة إيو فالو ما أنت وحنجعل هاي إن آن اللي لو داغو شان سيابود أما شان وضو وآد كجري كرتان هيلبكا علوشا كاسارا وشان وضو آد كجري كرتين هيلبكا علوشا كاسارا برنامج كان دايت نيوتريشن كا وبرنامج مدة بدن aan ku soo jiray aniga nafsadeeda aan ku dabaqay dad badanna aan ka caawiyay shantan wado waa shan wado aan soo tijaabiyay dad badanna ay soo tijaabiyeen waxa xaqiiq ah hadii aad raacdo in waqti kooban ama muddo kooban aad isbedel weyn iskaga arki doonto hilibka caloosha ka saaran ama qof rag ah ahaw ama qof dumar ah ahaw ama qof yar ahaw ama qof weyn ahaw waa wadooyin la xaqiiqsaday oo tested ah la soo fiiriyay la soo tijaabiyay marka insha Allah waxaan jeclahay 10 kale aan isku iman doonaa laakiin maanta barnaamijkeena ama fikradeena waa shan waxyaalood oo ku saabsan waxyaalaha laga rabo inaad sameeynin waa shantan waxyaalood soo socda waxaan jeclahay dhagihiina inaad u furtaan meesha waxa ku qoran 5 ways to cut stomach belly hilibka caloosha ah shan wado oo lagu jari karo waxa weeyaan no carbs kan markaan sharxi doonaa carbs waxa la laakiin carbs macnaheedu waxa weeyaan wax walba oo laga sameeyay sonkor saliid cusbo bur iyo waxyaalaha processka cuntooyinka la isku dardaray oo dhan ama gooniha u ahaadan ama ma garanaysa hal isku dardaro soo wax walba oo intaas ka kooban waxaan ka rabaa inaad ka tagtid waa no carbs cunto walba oo laga sameeyay sonkor iyo cusbo iyo bur iyo saliid iyo waxyaalaha la midka ah iyo cuntooyinka la process gareeyo oo dhan ama hal uu soo sameeyo warshad ama ma garanaysa cunto banaanka taalay oo muddo taalay oo yaani la rabo inaad markaa kadib aad cuntid ha ahaato wax walba oo carbs ah waad ka tagaysaa su'aal ina isweydiisid baa laga yaabaa oo ah maxaa cunaa waa u iman doonaa waxa cunaysid laakiin hadda waa no carbs talabaad waxa weeyaan no mixed drinks cabitaanada qasan oo dhan inaad ka tagtid ayaa laga rabaa maxaa kamid ah juuska caadiga ee qasan ama ha ahaadaan cabitaan markaas la qasay ama haduu rabo fresh ha ahaado sida dhaqaatiirta ay sheegayaan baa idin sheegaya wax walba oo qasan ama cuntooyin ama cabitaan isku dardaray ha ahaadaan sida smoothiga ama mushakalaadka waxyaalaha soo dhan iyo waxyaalaha la midka oo dhan waad ka tagaysaa sababtoo ah waxa uga tagaysaa waxa waa sonkor baa ku jirta sonkortii asalka ama sonkor kale oo sameysantay ayaa meesha ku jirta marka sonkortaas calooshaada tagaysaa soo wax walba oo cabitaan ah oo qasan waad ka tagaysaa waa no kale qodobka saddexaad waxa weeye no dinner cashada waxay keentaa hilibka ay caloosha ay keentaa haday gaajo ku hayso waxyaalo kale ku sheegi doona ayaa jiri doona oo markaas waxa weeye aad casho ahaan u cuni doonto laakiin casho markaan ka hadlayno dadkeena Soomaalida kulay waa meal baa loo yaqaan cunto weyn oo saxan ah oo lagu soo hordhigayo ama guriga ka cuntaysid ama meel kale aad tagaysid marka no dinner cashada waa iska yareynaysaa ama waa iska dhaafaysaa no weeyaan quraacda iyo qadada ayaad ku joogaysaa waana ka sheekeen doonaa waxa haday gaajo ku qabato bedelka aad gelin doontid marka tanna waa no tanafaraad no tea shaah oo dhan waa joojinaysaa shaaha waxyaalaha badan dadkeena u keena hilibka caloosha inuu saarmo oo waxa weeye shaah lagu celcelinayo ama quraac ama qado ama casho mar walba waxa aad arkaysaa qofka Soomaaliga 2 jeer ilaa 3 jeer shaah inuu cabayo marka shaaha oo dhan waa iska dhaafaysaa shaaha kale oo lagu bedelan doono ayaa idin sheegi doona taas insha Allah taala casharadeen soo socoto barnaamijyada soo socoto ayaad ka xigan doontaa laakiin hadartaan shaaha oo dhan waa joojinaysaa tanna waa no late time sleeping hurdada habeenka hadaa ka daahdo waqti dambe hadaa seexato dhaqaatiirta kulli wax ku sheegayaan miisaankaaga guud ahaan inuu kor u kacayo miisaankaaga calooshana kor u kacayo marka inaad on time ku seexatid
waxay kaa caawinaysaa calooshaada hilibkaaga caloosha ah inuu yaraado ama uusan ku fuulin. taasna waa mid anigu aan tijaabiyey, waa arkay xaqiiqdii dad badan oo aan u sheegay ama la taliyeyna waan ka arkay. marka mar walba waa inaad gebi ahaanba iska daysid hurdada habeenkii lagu daahayo, sababtaa waxay keentaa in ma garanaysaa hilibkaaga miisaanka uu kusii fuulo, gaar ahaan hilibka caloosha. marka shantan qodob oo kulligood wada noo ah, mid walba noo ayuu ka bilowdaa, ayaan jeclahay maanta inaad ku dhaqantaan ama barnaamijkeeni fikradii faalo aad ka faa'iidaan. wixii su'aal ah, wixii falanqeyn ah, wixii oo ma garanaysaa comments oo xaggeena videogan is gaarsiiya insha Allah taala. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.